ولي هاي دمانتين وحيدكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد سلام موضوع أو مانتا هل كان لو وصل سلكت كريه وحين سليه رنتي وموضوع متقانا لفظ نوعها بلشدة sababtoo ah waa labada qaybood ee bulshada hadii labadaas qaybood laga hormariyo ee bulshada dhan hormarayso haweenka la hormariyana macnaheedu waxa waa bulshada dhan oo la hormariyay sidaas si lamid ah hadii dhalinyaradu ayagana hogaan suuban loo sameeyana ayadana macnaheedu waxa waa dalka oo dhan hagaagay sababtoo ah sidaad ogtihiin ba wadankan markii la yiraahdo dhalinyarada boqolkiiba 30 wixii ka yar hadii la dhaho tira ahaan 75 in ka badan lagu qiyaasaa hadii African Charter Youth ka la geeyana boqolkiiba 35 la dhahana boqolkiiba 80 iyo wax ka badan ay gaaraan macnaheedu waxa waay asadka kaliya ee dalkan uu leeyahay waa anaga oo dhalinyarada ah hadii anaga iyo maamooyinkeena oo anagana intaan ma soo gaari lahayn hadii dalkan ay u soo samata bixin lahayn haweenka Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed dhalinyaradan quruxda badan ee aqoon-yahanada halka ma soo gaareen wasiirka idin hortaagan dhalinyaradan intaan ma soo gaareen haday hooyo Soomaaliyeed aysan heerkan soo gaarsiin lahayn aysan soo investigate lahayn marka runtii hadii labadaasi door ama labadaasi qaybood bulshada Soomaaliyeed loo istaago in laga hagaajiyo ama loo istaago in laga mataqaana maalgeliyo ee xagga tubta suuban loo maalgeliyo waxaan isleeyahay runtii waxa loo istaagay in la maalgeliyo bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteeda sidaad ka warqabtaan maanta anagu Soomaali hadaan nahay waxaan ku faanaa waxaan wadanka ugu population iska badan xagga dhalinyarada markii la fiiriyo maanta markaad fiiriso wadamada reer galbeedka ah fursad anaga haysano dahabiga ma haystaan sababtoo ah maxaad arkaysaa sanad waliba waxa la leeyahay wadan hebel wuxuu furay Canada waxay furtay lottery intaasoo kun oo dhalinyaro Afrikaan la qaada macnaheedu waxa waa sanad walba saaxada shaqooyinka ay suuqa ka baxo dad image ama leedkii lagu talagalay age-kii lagu talagalay ee shaqada in looga fariisto ka fariisanayo bedelkeedina ma lahan annaga maanta waxaan haysanaa fursad maanta waxaan leenahay annaguna ayagu waxay leeyihiin maanta wax u shaqeeyeen dalkaasi waxay leeyihiin dhalinyaro u shaqeyso maxay dadkoodii beeshan markay gaaraan dadkii bedeli la waxa la yaabaa sanad walba inay saaxada shaqada ay ka fariisato kumanaan kun oo mataqaana dad shaqeynayo age-kii beeshankii galay waxa ku yaraanayo dadkii bedeli lahaa annaguna cagsigeedan ka shaqeynaa marka that's why sanad walba waxay leeyihiin waxaan furaynaa lottery waxaan u baahanahay intaasoo kun 20 kun oo dhalinyaro aan u baahanahay Afrikaana si dadkaasi saaxada shaqada ka baxay si ay booskooda u bedelaan annaguna maanta waxaan u baahanahay shaqadaas in la abuuro shaqadaas marka in la abuuro waxay ku gaari kartaa ama lagu gaari karaa doorkaas in la maalgeliyo haweenka hadii la maalgeliyana waxay si maalgelinayaan ama barbaarin wanaagsan ku sameynayaan jiilka ama dhalinyaradu haday hagaagto barbaarin wanaagsan helaana waxa hagaagay guud ahaan dalka hagaagay si marka targetkaas loo gaaro maanta waa uga mahadcelinaa in aan idin kala soo qayb galo hay'adda iyo teamka soo wada asaasay ama soo abaabulay doorkan quruxda badan iyo mawaadicdan quruxda badan waxaan leenahay waad mahadsantihiin meeshii loo baahnaa ayaad abaarteen runtii waxay ahayd meel ay bulshada Soomaaliyeed ay aad baahi ugu qabtay marka waxaan rabnaa oo kaliya in la sii xoojiyo hadii ay intaas hagaagaan waxaan aaminsanahay shaki ku jirin inay hagaagayso dalka guud ahaan inay hagaagayso dhalinyaraduna waa asidka iyo raasmaalka kaliya wadankan uu leeyahay waana dadka kaliya jihey karto maanta markii la yiraahdo sidaad ka warqabtaan wadanka wuxuu ku jiraa ama aad ka warhaysaan dib u xoreyn ku jira waa aragteen dib u xoreynta dadka la dagaalayo dadka difaacayo kulli marka fiirisa dhalinyaro way marka waxaan rabnaa inta yar oo la qalday waxa ka badan inteena wax baratay waxa ka badan ani mar walba waxaan dhahaa nimanka maanta wadankaana aragtay Soomaaliya nolosha iyo mataqaana resource-ka kheyraadka uu leeyahay inaan ka faa'iideysano oo aan ku naaloono dadka noo diidan ayaga dhan waxa ka badan gobolka Banaadir ilmaha dugsiga sare ka baxa ka badan ayaga dhan aad aragtay kaliya waxa ka badan ardayda gobolka Banaadir ee dugsiga sare ka badan marka waxaan rabnaa hadii inteena iyo in lamida hadaan si wacyi gelino oo aan si gaarsiino fariinta positive-ka waxaan aaminsanahay dalka waa ka xoreysan karnaa
insha Allah waana dhowdahay mar dhowna waxa insha Allah rajaynaynaa inay ku soo dhamaan doonaan nimankan horarka ee dhibaatada ku ah magaceena dhibaatada ku ah victimka dadka u ahan annaga waay sababtoo ah magaca ay wax ku dhibaateynayaan magaca ay dadka isticmaalayaan dhamaantooda waa annaga dhalinyarada hadii marka annaga dhalinyarada ah ee aan helno maalgelin sax ah ee sida hadda inta ku cada in dhalinyaradu iyo haweenka la hormariyo hadaan horumarintaas si sax aan u helno waxaan aaminsanahay nimankaas ma sii jiri doonaan waxay ku soo aruuri doonaan taariikh hore bari hore waxa jiri jiray Soomaaliya niman dhalinyaro dib badan falaayo taariikh ku soo aruuraan marka inay taariikh ku soo aruuraanna inteena waa awoodna yes we can marka insha Allah inteena iyo inta kale oo dhalamidka aan isgaarsiino wax yara u dhiman meesha maanta ay taagan tahay dadkan in dalka laga xureeyana nimankan horarka cadowga nabadiidka argagixisada in wadanka laga xureeyo wax yara u dhiman intaas yar aan contribution keena ku darno qof walba meesha joogta oo dari karta kaliya ma ahan in furinta tagto qori qaadato magaaladan lafteeda uga shaqeey karta kuwii markii furimaha lagu jibiyay ee furimaha lagu kulay waa aragtay maalin kasta waxay horar ku yihiin ayagoo carara farxada magaalada soo galaan magaaladana ku nooshahay hadaad isleedahay shabaab wax laga sheegaa waa loo dhintaa ama ku dilayaan hadaa istiraad shabaab meel wax loo sheegay fadhiday ee ma taqaana hadii aad lagu arko waa u dhimanaysa shabaab looma dhintay malakumooda loo dhintaa imisa ayagoo wax ka sheegin imisa ayagoo wax dhihin intay maqaayada u caawad tageen ama ma taqaana casriye tageen inta soo weerareen lagu dhex dilay imisa wado ayagoo iska maraayo ama shaqooyinkooda ama iskuuladooda ama waxbarashadooda u socdo ama magaalada qaybaheeda kala duwan u socdo ay shabaab accident ku dileen tiro male hadda qaraxii ugu dambeeyay soobe dadka ay dileen oo dhan wasaaradda waxbarashada u socdeen wasaaradda waxbarashada waxa inta ka shaqeeyay in yar waa inta dileen hal qof oo wasaaradda waxbarashada u shaqeeyo kuma jirin dad masaakiina hooyooyin meesh ku ganacsanayay dhalinyaro iska xoogsanayso bajaajla qola tuugsanaysay qola meesha ka xamaalanaysay timo jarayaal ganacsi yaryar dadkay wada laayeen dhan waa innocent waa dadan waxba galabsan waa marka dhalinyaro runtii waxay tahay nimankan